لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هل كان waxaan kasoo gudbinaynaa casharkii 192 ee tafsiirka Quraanka Kariimka casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 8aad ee suuratu an-Nahl waxaan casharkeenii hore uga soo sheekaynay nicmooyinkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaybo badan oo kamid ah iyo awoodda Ilaahay waxyaalo badan oo tusinaya gaar ahaan aayaddii u dambeeyday shimbirahaas hawada socda oo Ilaahay maahana cid kale oo haysaahi aysan jirin iyo inay fahmayaan arrinkaas dadka muuminiinta ah Ilaahay wali subhanahu wuxuu nooga sii sheekaynayaa nicmooyinka uu nasiyay maadaama suuradan ay magacyadeeda ka mid tahay suuratu an-Ni'am Ilaahay wuxuu leeyahay wallahu Ilaahay jacala wuu yeelay lakum adinka wuxuu idin yeelay min buyutikum guryihiina xaggooda wuxuu idinkaga yeelay sakanan meel la dego Ilaahay guryo idin siiyay guryahaasna wuxuu idinkaga dhigay meel la dego oo aad ku xasishaan meel la dego oo aad ku xasishaan sakan waaba gurigii la degayaba والله إلهي جعل ويا سمي لكم أدينك من بيوتكم قرينا حقه حاله كهذا سكان قري أيو إدين سمي إلهي ملا دقو وجعل لكم أدينك نوحى الله إدين يلو إدين سمي من جلود الأنعام نعموليدي وحوله هرجه هذا الله وحو إدين كجسمي بيوتا قريه قريها سو تستخفونها آفض ضيسان إيسان يوم ضعنكم مالك أجور إيسان iyo wa yawma iqamatikum nagaadigiina maalinkeeda wa min aswafiha xoolihi gaar ahaan idihii dhagortooda waxa alla idinkaga sameeyay iyo wa awbaariha geeli dhagortiisi iyo wa ashcaariha aricadkii dhagortiisa athaathan saamaantii guriga alaabtii guriga iyo wa mataacan raaxo ayaa alla idinkaga dhigay waxaad ku raaxaysataan إلى حين وقت لقى جاره نعموينك إلهي ووين كمته إلهي وحوله هرتا قريه النمال أدكتانا لينك قدك مد اللبات هرجيه حولها وحن صومرني إني منافع بدن ليهين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وتي إلهي سورة بلوغ دون نغسو شاكي مركا إلهي وحولي وحا كميدا فائدوينك حولهنا كيليسان مركي لقاشو هرقودا هرقاهاس قريابا لغا دستابا oo dadkii yaqaanay guriyay ka dhisanayaan sida sarti oo kale iyo waxa weey hargahaas waaweyn markii la sameeyo guriya laga dhistaa guriyaasna waa guriyo fududo maalinka aad gooreysaan waa idin fudud yihiin inta la laalaabo ayaga dhan aad qaadanaysaan marka aad dagaysaan oo nagaadiga tihiinna waa idin fudud yihiin oo ayaga dhan hal mar ayaa la taagaya oo la dhisaya xoolaha dhogortooda noocyadeeda kala duwanna ilaahay alaabo in kaga sameeyay oo waxa weeye hadda alaabtii guriga waxyaalo badan oo laga sameeyo ayaa jira hargahaasoo hamankii maaragtay looga sameeyaa saabkii oo kale dhiilihii looga sameeyaa maaragtay waxyaalaha suumana looga sameeyaa tabadihii iyo waxyaalihii oo dadka alaabta reebaadiyaha alaabta ay isticmaalaan qaybo badan ayaa laga sameeyaa hargahaas xoolaha waana wax aad ku raaxaysanaysaan oo ku noolaanaysaan ilaa waqtigii maaragtay laga gaaro waqti ilaa waqtiga ay baaliyoobaano hadda shaygan waa dhamaanaya ilaa xiinin ilaa waqtiga uu baaliyoobayo baaba ay laga gaaro mid cusub u baahanaysaan wallahu ilaahi jacala wuu yeela lakum adinka min buyutikum guryihiina wuxuu idinkaga yeelay sakanan meel la dego وجعل لكم أدين كان وحو إدين يالي من جلود الأنعام حوله النعموليد أها
hargahooda wuxuu idinkaga yeelay buyuutan guryo guryahaasoo tastakhifuunaha aa fududaysanaysaan yowma dacnikum maalinka aada guuraysaan oo maalinka aad guuraysaan waa guryo fudud oo la qaado karo la raro karo awrtii iyo la saaro karo wa yowma iqaamatikum maalinka aad nagaanaysaanna waa fududaysanaysaanoo in si fudud loo dhiso ayaa fudud oo dumarkii aba degdeg ku dhisaba wa min aswaafihaa xoolihii dhogoryaalkooda yacni gaar ahaan idihii dhogoryaalkooda iyo wa awbaariha geeli dhogortiisa iyo wa ashcaariha arigi riyahaha dhogortiisa alla wuxuu inkaga sameeyey athaathan saamaantii ama alaabtii guriga alaabta guriga wa mataacan raaxaynna alla waa inkaga sameeyo waxaa ku raaxaysataan ilaa xiinin waqti laga gaaro inta shaygaas uu inka duqoobayo inka baaliyoobayo markaasna mid kaloo cusubaa ka samaysanaysaan waxyaalahaas waqtigaas alaabtaasaa la isticmaali jiray nicmooyinkaasa ilaahay fahansiinaya inuu isagu siiyey wallahu ilaahay jacala wuu yeelay lakum idinka mima khalaqa wixii uu abuuro wuxuu idinkaga yeelay dhilaalan hoosyaal oo maaragtay guryihiiya hoos le geedihiiya hoos le daruurtiiya hoos leho cadar ah ilaahay khalqigiisa ka mid tahay waxyaalahaas hooska laga helayo oo maalin qoraxa waxaa laga yaabaa oo aada socotid in inta ilaahay cadar ka dhigo aada daruurtaas iskaga socotid waa dadka reer baadiya waa aragnay sida cadarka iyo u jecel yihiin marka geedihiina hoosa loo yeelay guryihii hoosyaalkaas ilaahay idin abuuray dhilaalan hoosyaal wajacala lakum ilaahay wuxuu idin abuuro idin siiyey min aljibaali buurihi xaggoodana aknaanan meelo la dugsado oo buurihiina kini oo la dugsado dadkii qabowgii iyo ay ka galaan ayaa ilaahay oga sameeyey waa nicmooyinka ilaahay ka mid tahay wajacala lakum ilaahay wuxuu kaloo idin yeelay saraabiila qamiisyaal taqiikum idin ilaalinaysa alxara kulaylkii macnaha qamiisyaalkan hadda dharkia loo jeedaa ho dhar oo qabowgii iyo kulaylkii labada inka ilaalinaya kulaylka hadda la sheegay qabowgana waa inka ilaalinaya dharkaasna ilaahay baa idin siiyey xoolaha ka samaysataa geedihii ka samaysataa wax kale laga sameeya ilaahay baa idin siiyey wa saraabiila cabuuryaalna ilaahay waa idin siiyey taqiikum idinka ilaalinaysa ba'sakum dagaalkiina oo bahalkii cabuur bireedka la dhihi jirayo oo maaragtay yacni qaarka hore inta la gashto bahalkaas warmihii iyo seefihii iyo ka ilaalinaya qofka waxa weeye ilaahay baa idin siiyey markaas hadda cabuurkaasa la isticmaali jiray marba waxbaa qalabka rasaasta celiye ah hadda waa jiraan qalab kaloo rasaasta celiyo oo ka adag kaas asagana ilaahay baa bixiyey oo ku ilhaamiyey samayntiisa kadalika sidaas oo nicmooyinkaas aan soo sheegnay oo kale ayaa yutimu alla u dhamaystiraa nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina ugu dhamaystiraa waxaasoo nicmo ah oo aan soo sheegnay ilaahay wuxuu leey waa nicmo u idin siiyey sidaasaa waxaa u baahantihiinna alla idin siinaya lacalakum waxaan badantihin reemakow tuslimuuna inaad islaamtaan oo ilaahay a kala yeeshaan ilahay wuxuu yidhi wallahu ilaahay jacala wuu yeelay lakum idinka mima khalaqa wixii uu abuuro wuxuu idinkaga yeelay dhilaalan hoosyaal wajacala lakum idinka oo geedihii iyo guryihii iyo daruurtii oo cadara iyo hoos laynka siiyey wajacala lakum idinka wuxuu idin yeelay ilaahay min aljibaali buurihi xaggoodana aknaanan meelo aada dugsataanoo godadkii iyo meelo kale oo aada qabowgii ka dugsataana ilaahay buurahana inkaga siiyey wajacala lakum alla wuxuu idin yeelay saraabiila qamiisyaal ama dhar ayaa alla idin yeelay taqiikum idinka ilaalinaysa alxara kulaylkii dharka qabowga inka ilaalinaya kulaylka labadaba alxara walbardaa ku jirta meesha min baab aliktifaa leera dhar inka ilaalinaya qabowga iyo kulaylkaba ayaa alla idin siiyey wa saraabiila cabuuryaalna alla waa idin siiyo macnaha cabuurkan wuxuu ahaa waa dharkii gaashaanka camal ahaa gaashaanka laftigiisa maahan dharkii la xira jiro adkaayo oo qalabkan rasaasta celiyo kale booskiisii taagnaa seefti iyo warankii iyo wixii oo dhan qofka hadday ku dhacaan aysa waxba u dhibeyn taasoo dharkaas saraabiisha ahoo taqiikum idin ilaalinaysa ba'sakum dagaalkiina inka ilaalinaysa sida koofidan rasaastu karin iyo qalabka aan rasaastu karin oo hadda ciidamada wadamada horumara ay haystaan oo kale waxa weeye sidaas oo kale wax ahaa wey meeshaasay joogeenoo markii fallaartii iyo warankii iyo seeftii lagu dagaalamayay ayaa dadku xiranayeen wasaraabiila taqiikum ba'sakum marka wax kastoo horumara oo la sameeyaba qur-aanka kasii horumarsanoo sii sheegayo laga tex raacay qalabkii militariyo xataa qur-aanku waa kaa noo sii sheegay wasaraabiila
qamiisyaal macnaha dhar caburiya la wada qalabkii rasaasta celinaya kaasoo taqiikum idinka celinaya oo idinka ilaalinaya ba'sakum dagaalkiina iyo xarbadii oo macnaha idinka ilaalinaya warankii inuu idin mudo saaftii inay idin saamayso waxa weeye tooreydii fallaartii wixii oo dhan kadalika sidaas oo nicmooyinkan ilaahay uu idin siiyey siduu u sameeyey ayuu yutimu alla dhamaystirayaa nicmatahu nicmadiisii adduunyadan dhexdeeda calaykum korkiina oo macnaha wuxuu idin sii abuurayaa wax kalood u baahan tihiin kadalika yutimu nicmatahu waxa weeye waxyaalo kaloo aadna haysan ee aad u baahan doontaana alla idin sii doonaa marka allahaasaa iskale awoodda dhan lacallakum waxaa mudantihiin tuslimuuna inaad hoggaansantaan oo muslintaan oo ilaahay kala yeeshaan oo ogaataan awoodda keligiis inuu leeyahay fa in tawallow haddii ay jeestaan nebi moxamedow hadday jeestaan oo islaamka diidaan markaad dacwadan ugu yeertid oo nicamtan usoo bandhigtid fa inamaa calayka adiga korkaaga waxaa ahaaday albalaaqo gaarsiin almubiinu cad bas adigu dacwada gaarsii walwal kale iyo kurbo kale iyo culays kale iyo midna yaysan kugu hayn gaarsii bas ha intaasaa laga rabaa waa intan dagaalka la farina la ihahdaa yacrifuuna way garanayaan nicmat allahi ilaahay nicmadiisay garanayaan nicmadan in alla siiyey ayay fahmayaan oo qirayaan way qirayaan inay alla agtiisa ka timid uma intaa kabacdina yunkiruunahaa nicmadii way diidayaanoo ayagoo qirsana inay alla xaggiisa ka timid ayay diidayaanoo ficil ahaan ay u diidayaanoo hadda asnaamtii ilaahay la wadaajinayaan marka mar cid aan waxba lahayn markaad wax la wadaajisay oo aad tiri waxa weeye mathalan ba qof ayaa maanta ku siiyey lacag uu siiyey $100 ku siiyey waxaad ogtahay qofkaas inuu $100 ku siiyey qofkii oo kula jooga ayaa waxaa tiri qof kale hebelow adiga hebelba waa mahadsantihiin aad tiri ha maxaa yeele $100 ay wada siideen $100 ayaa ay wada siideen midkan kalena waxba kuma wada siin marka qofkii muxuu u arkayaa lacagtii asaga uu ku siiyey ayaa waxaad tusaale ogala dhigtay aad ugula mahad celisay qof kale oo waxba ku siin sidaas oo kale weeyo ayagoo og in ilaahay uu nicamtan siiyey ayay asnaam aan waxba siin ayay la wadaajinayaan ha oo inkiriddu waxa weeye shirkiga ay galayaan wey biishraakihim ilaahay la wadaajinayaan marka waxaa la rabaa inay ilaahay ku shukriyaan oo yidhahdaan alxamdulilah ilaahay baana siiyey waxa weeye sanamkii wax uga tiirshaan ficilkii wa aktharuhum intooda badanna alkaafiruuna kuwa gaala ah wey waa ku kufriyeen nicmada ilaahay oo dhan ayba diideenba wa yawma maalin xus xabiibka maxamedahow nabcathu aan soo saari doono min kulli ummatin ummad kastaba shahiidan mid maraga aan kasoo saari doono maalinka ummadda dhan khalqiga dhan ta la isu keeno ummad kastaba nebigeedii la hor keenayo ee uu ku dul markhaati kici doono waa maalinka qiyaamo uma laa yu'danu dadkana looma fasixi doono looma ogolaa doono liladiina kuwii kafaruu gaaloobay looma ogolaa doono wax cududaar ah inay cududaartaan maalinkaas ilaahow saan iyo saanaa naga dhacday ilaahow tanaan nagu keentay looma ogolaa doono walaa hum ayaguna ma ahaanin yustactabuuna kuwa raalligelin la weydiinayo horta hadday dalbadaan cududaar looma fasaxayo oo qaladkan sameyna inaan ka cududaarano looma ogolaanayo dhanka kalena adinku raalligelin ka bixiya qaladka gasheenna lama leh naarta afka looga guraya wa yawma maalin xus xabiibka maxamedahow nabcathu aan soo saari doono min kulli ummatin ummad kastaba shahiidan mid markhaati ka ah oo ku dul markhaati kaca aan soo saari doono nebigeeda aan keeni doono ummad kasta uma markaa kabacdigina laa yu'danu looma ogolaa doono liladiina kuwii kafaruu gaaloobay wax cududaar ah looma ogolaa doono inay cududaartaano qaladkii ka dhacay ay raaligelin ka bixiyaan looma fasixi doono hadday weydiistaan xataa walaa hum ayaguna ma ahanin yustactabuuna kuwa raaligelin la weydii doono lagama dalbi doono lama dhihi doono waxa weeye qaladkaa gasheen raaligelin ka bixiya taasina ma jiri doonto waidaa ra'aa markii ay arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey alcadaaba cadaabki markay arkaan cadaabka ilaahay oo weynaa markay indhaha ku dhiftaan falaa yukhafafu lama fududaynayo canhum xaggooda walaa hum ayaguna ma ahaanin yundaruuna kuwa la sugaya
maalinka qiyaamo kuwa gaalooba markay cadaabkii arkaan cadaabkaas lagama fududaynayo lamana sugayo. allahu akbar. ilahu cadaabkaaga naga dug. waidaa waqtigii ra'a aladiina kuwii ay arkaan dalamuu dulmiga sameeyey oo alla beeniyey alcadaaba cadaabka markay arkaan falaa yukhafafu lagama fududay doono marba xilligaas haddii la gaaro canhum xaggooda cadaabkii lagama fududay doono. wax naxariisa ma jirto markaas. walaa hum ayaguna ma ahanin yundaruuna kuwa la sugayo hal mar jaanis hana la siiyo bal inaan adduunka inta u laabana toobadkeena iyo aan raaligelin bixinayo ma jirto. waidaa ra'a aladiina kuwii markay arkaan ashrakuu ilaahay wax la wadaajiyey shurakaa'ahum kuwii shurakadooda ahoo ilaahay ay la wadaajiyeen markay arkaan oo shayaadiinta iyo keyrkoodba qaaluu waxay leeyihiin rabbanaa ilaaheeniyow haa-ulaa'i kuwaani shurakaa'unaa kuwii aan adiga kula wadaajinay weye aladiina kuwaasoo kunaa aan ahayn nadcuu inaan caabudayno min duunika adiga soka kuwaas ayaan adiga sokada caabudaynay. fa alqow waa ay ridayaan ilayhim ayaga ayay waxay usoo ridayaan alqowla hadalkiiyo waxa weeye macnaha shurakadiya markaa hadlaya shurakadiya fa alqow shurakadii oo sanamyaalkiya waxay ridayaan ilayhim ayaga ay waxay usoo ridayaan alqowla hadaloo macnaha shurakadiya waxay leeyihiin inakum adinku lakaadibuuna beenaalayaal ayaa tihiin. annaga namaadnan caabudayn maa kaanuu iyana yacbuduuna ilayhin annaga namaysan caabudayn. markaasay sayakfuruuna bicibaadatihim cibaadadoodii ku kufrinayaanoo asnaamtia waxay leeyihin annagu mana aana ogeyn lamana aana socon namana aysa caabudayn. marka iyagu calaacalaan oo yidhahdeen ilaahay waa kuwaan waxa aan caabudayn. laakiin waxaasoo dhan waxba ma tarayaan. inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannam. halkaas u dambaysa. waidaa ra'aa haddii ay arkaan uu yihi ilaahay aladiina kuwii ashrakuu ilaahay wax la wadaajiyay shurakaa'ahum kuwii ay wax la wadaajinayeen oo shurakadii iyo asnaamtii markay arkaan wuxuu raba ha noqdo shurakadaasi qaaluu waxay leeyihin kuwii wax oo gaalada ahaa rabbanaa ilaahaniyow haa-ulaa'i kuwani shurakaa'unaa waa kuwii adiga aan kula wadaajinaynay aladiina kuwaasoo kunaa aan ahayn nadcuu inaan caabudayno min duunika adiga kaa sokadaada. fa alqow haddaba shurakadii oo asnaamtii ha jawaabayo waxay ridayaan ilayhim ayaga alqowla hadalkii soo ridayaanoo waa la hadlayaan maxayna leeyihiin inakum adinku lakaadibuuna beenaalayaal ayaa tihiin namana aadnan caabudaynay leeyihin cibaadadiinana warba kamaa nahaynay leeyihin warba kamaa nahayn waxaad sheegaysaan. wa alqow gaaladii waa ay ridayaan ilallahi ilaahay waxay usoo ridayaan oo u dhiibayaan yawma idin maalinkaas markii cadaabka la arko assalama hoggaansan maalinkaasay xukumka ilaahay u hoggaansamayaan. baryo ama rab ama ha rabin weye ilaahayba markaa u hoggaansamayaan. wadalla waxaana ka lumay canhum xaggooda maa kiyaa ka lumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan oo ahaa in ilaahyadooda u shafeeci doonaan ay ku andacoo jireen waxaasoo dhan meeshay ka baxayaan. wa alqow way ridayaan ilallahi ilaahay yawma idin maalinkaas assalama hoggaansankiiyo macnaha ilaahay bay isu dhiibayaan xukunka ilaahay u hoggaansamayaan. hadda waa qasab. wadalla waxaana lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay oo aan waxba u tari doonin maa kaanuu wixi ay ahaayeen yaftaruuna inay ku been abuurtaanoo waxa weeye been abuurkii ay sheega jireen oo dhihi jireen ilaahyaalkeenna ayaa noo shafeeci doona ilaahyaalkeenna aana caawi doona wixii oo dhan meeshay ka baxayaan. aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wasaduu hor istaagay can sabiilillahi ilaahay waddadiisa kuwa inta gaaloobay haddana dadkii kalena khayrka iyo diinka ka hor istaagay zidnaahum waan u kordhinaynaa cadaaban cadaabaan u kordhinaynaa cadaabkaasoo fawqa alcadaabi cadaab kala korkiisa. cadaab waa midkii kufrigooda ahaa midna waa kii ummadda ay diinka ka hor istaageen labadaas cadaab ayay isku yeelanayaan. allahu akbar. bimaa kii dartiisana ugu kordhinaynaa kaanoo ay ahaayeen yufsiduuna dhulka ilaahay ay ku fasahaadinayaan oo waxa weeye ay ummaddii iimaanka ka hor istaageen. aladiina kuwii kafaruu gaaloobo wasaduu dadkii ka hor istaagay can sabiilillahi ilaah waddadiisa zidnaahum waan ugu daraynaa cadaaban cadaabkaasoo fawqa alcadaabi cadaab kala korkiisa ahaaday.
bimaa kii dartiisana ugu darayna cadaab dheeraada kaanoo ay ahaan yufsiduuna kuwa fasahadiya ardada ilaahay iyo dhulkiisa oo kufriga ku fasahadiya dadkii kalena xaqa ay ka hor istaageen ku fasahadiya laba dambiila weeye wa yowma maalin xus xabiibka maxamedow nabcathu aan soo bixinayno fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda shahiidan mid markhaati ah aan soo saarayno calayhim ayaga ku dul markhaati ka ah kaasoo min anfusihim ayaga nafyaalkooda xaggooda ka ahaaday maalinka qiyaamo xus oo ummad kastaba markhaati laga keenayo markhaatigaasna ayagu ku dul markhaati kacayaa ayaguna ka tirsan yahin waa nebigoodii cid kale ee aan joogin lama keenayo nebigoodii oo ayaga ku dhex noolaa ayaa lasoo saaraya markaasaa laleeyahay dadkaan xaqa ma u sheegta xaqi ma ay qaateen maya intii qaadatana hule wa yowma maalin xus nabcathu aan soo saari doono waa maalinka qiyaamo fii kulli ummatin ummad kastaba shahiidan mid markhaati ah aan kasoo saari doono calayhim korkoodana markhaati ku ah shahiidkaasoo min anfusihim ayaga naftooda ka mid ah waa nebigoodii ayagu ku dul marag furaya inuu xaqa gaarsiiyey waji'naa waan la imaanaynaa bika adiga nebi maxamedana shahiidan xaalata kii markhaatiya adigoo markhaati ah calaa haa-ulaa'i kuwan oo ummadaada ah iyo gaalada ummadan ku jirta adigoo ku dul markhaati kici doono yani dadkaagaan adoo ku markhaati kici doono waji'naa bika waan kula imaanaynaa adigana shahiidan adigoo markhaati ah calaa haa-ulaa'i kuwaanaad ku markhaati kacaysa qoomkaaga iyo qof kasta oo nebi maxamed maalinkii lasoo diray qof kasta oo maalinkii nebi maxamed lasoo diray ilaa qiyaami saaca nebiga beeni wuu ku markhaati kacaya kii rumeeyana oo waddadii fiicnaad marana wuu u markhaati kacaya wanazalnaa waan soo dejinay waa soo dedejinay nazala iyo waxaa kala jira anzala waxa weya waa markii qur-aankan hal mar lasoo dejiyo inaa anzalnaahu fi laylati alqadr qur-aanka hal mara lasoo dejiyey oo samaa dunya lawxul maxfuud inta laga soo dejiya samaa dunya la keenay laakin nazala waa markii kiskis iyo qayb loo soo dejiyo waxa weeye 23 sano ayaa qayb looga soo dejinayay samadan baytulcuza meeshiisa ilaa mar kastaba waxaa lasoo dejinayay wixii dhacdadii taagan oo loo baahanya marka wanazalnaa waan soo dedejinay qaybaan usoo dedejinay calayka korkaaga qayb waxaan ugu soo dejinay alkitaaba qur-aanka kitaabka qur-aanka ah ayaan qayb kuugu soo dejinay tibyaanan asagoo caddayn ah likulli shayin wax kasta ummadda u baahan tahay asagoo caddaynaya oo shareecadooda uga baahan tahay tibyaanan likulli shayin wax kasta oo koonkan ka jira ummadda u baahan tahay kitaabku waa caddaynaya wixii xalaaluhu caddaynaya wixii xaaraamana waa caddaynaya kaliya fahankaa la isku dhaafo waxaa dhici karta adigu inaad ka fahmi weydo laakin kitaabka ilahay wuxuu iska hadli ma jirto tibyaanan asagoo caddayn ah likulli shayin wax kasta caddayn ah wa hudan asagoo hanuun ah qur-aanku waraxmatan asagoo naxariis ah wa bushra asagoo bishaaro ah lilmuslimiina muslimiintu bishaaro u yahay muslimiintu naxariis u yahay muslimiintu hanuun u yahay tibyaanan asagoo caddayna ayaan soo dejinay ilahay yiri wanazalna waan soo dedejino qaybaan usoo dejinay caleyka korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aanka tibyaanan caddayn asagoo ah likulli shayin shay kasta wax kastoo ummadda u baahan taha la caddeeyo wahudan asagoo hanuun ah baadidii looga hanuuno waraxmatan asagoo naxariis ah wa bushra asagoo bishaaro oo janno ku bishaareynaya lilmuslimiina muslimiinta bishaara u ah oo naxariis u ah oo hanuun u ah kuwa alla kala yeelo waayahay ina allaha ilaahay ya'muru wuu faraa bilcadli cadaalada ilahay faraa dulm ilahay ma ogola ma ogola cadaaladan tawxiidka waa lagu fasiraa insaafka iyo garsoorka cadaaladii caadiga ahaydna waa lagu fasiraa walixsaani wanaajinna ilaahay waa faraa ixsaanka waxaa kamid a waxyaalihii waajibaadkaha lagu faray inaad gudatid waxaa kamid a inaad sii dhaafsiidid oo an tacbud allaha kaanaka taraah ilaahay inaad caabudid sidii adigoo arkaya fain lam takun taraahu fainahu yaraaka mal ixsaanu
an tacbud allaha kaanaka taraah watuu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam fain lam takun taraahu fainahu yaraak maqaam sare wey wanaajina ilaahay farah wa iitaa'i di lqurba qaraabada midka u saaxiibka ah in wax la siiyo ayaa ilaahay farah waxaa gooni loogu sheegay waa danayn lasii danaynayo wayan saddexdaas ilaahay fare aayadana lagu sheegay wax badan ilaahay fare wayanhaa ilaahay wuxuu reebaa can ilfaxshaa'i wixii xumaa oo zinadii oo kale ah walmunkari wixii la diiday oo gaalnimadkii iyo macaasidii kale ah walbaqyi dulmigii dadka la dulmiyo isagoo baqyigu ku jira munkarkii ayaa si gooniya loo sheegay maadaaba ilaahay aada usii necbiya dulmiga dadka la dulmiyo oo waxaa dhici karta waxa weeye faaxishadii lagu bilaabay zinadii munkarkay ku jirtaa waxaa gooni loogu sheegay si waa xumideeda badan saa gooni loo sheegay zinadii dulmigana gooniya loo sheegay maadaama xumaantiisu ay badan tahay laakiin walmunkariya waxaa dha iskula jira ina allaha ilaahay ya'muru waa farah bilcadli cadaalad walixsaani wanaajinta wa iitaa'i di lqurba qaraabada qofka saaxiibka ah qofka qaraabada in wax la siiyo wayanhaa ilaahay waa diidaa can ilfaxshaa'i wixii xumaa walmunkari wixii la diiday oo munkarka ahaa iyo walbaqyi dulmigii ayaddan waxaa asxaabtii qeyb ka mida ku tilmaameen ajmacu aayatin fi lqur'aani lilkhayri washari aayadda qur-aanka khayrka iyo shartaba ugu kulmi og wixii khayraho in la raaco la rabo iyo wixii sharaho in laga taga la rabo yacidukum alla wuu idin wacdinayaa oo idin waaninayaa muxuu inku wacdinayaa bilamri bilmacruuf wanaagii oo la faro iyo wanahyi can ilmunkar ayadda labadaas qaybooda ka koobneed munkarkii oo la iska reebo wuu idin wacdinayaa lacalakum waxaa mudan tihiin tadakkaruun lacalakum waxaa mudan tihiin tadakkaruun inaad wacdisantaan oo waansantaan inaad wacdisantaan oo waansantaan wa awfuu oofiya bicahdiillaahi ilaahay ballankiisa oofiye ballanka alla oofiye ballanka ilaahay oo aada iimaanka kula ballanteen cibaadada aad kula ballanteen beeci aada gasheen wixii ballanahood gasheenba oofiye ballan oo dhan oofiye nuucu raba ha noqde dhexdiina kan ah iyo kan adinka iyo ilahay dhexdiina ah idaa caahadtum markii aad ballantaan oo ballan gashaan ballankaas kaad ilaahay la gasheen ha ahaado kii adinka dhexdiina aad gasheenna ha ahaadee ballanka oofiye waa ballan ilahay waxa dhan wa awfuu oofiya bicahdillahi ilaahay ballankiisa idaa caahadtum markaa ballan gashaan aada ballantaan walaa tanquduu ha burinina al aymaana dhaaryaalkii bacda tawkiidihaa dhaaryaalkaas markii la adkeeyey kabacdi dhaartaas ha burinina haddaad dhaarataan dhaartaas ha ka bixinina si waxaa ku dhaarateen fuliya markaas waa haddii aadnan arkin waxaas wax ka khayr badan hadduu qofku dhaarto wax ka dhaarto laakiin uu arko waxaas wax ka khayr badan sida xadiidka saxiixa u ahaa wax khayrka badan u sameynaa dhaartiina u ka kafaara gudanaya waa yahay walaa tanquduu ha burinina al aymaana dhaaryaalkii bacda tawkiidihaa markii dhaaryaalkaas la adkeey kabacdi waqad jacaltum ullaha walxaal qad jacaltum ullaha ilahay aa ka dhigateen calaykum korkiina kafiilan mid markhaati ah adinkoo ilaahay ka dhigateen markhaati korkiina uga dhigateen oo waxa weeye markaad dhaaratay waxaad ku dhaaratay ilaahay magaciisa taas macnaheedu waxa weeye ilaahayba markhaati iga ah waxaas inaan samaynayo marka adoo ilaahay ka dhigtay markhaati wixii aad ilaahay markhaati uga dhigatay waa inaad fulisaa walaa tanqudu laymaan dhaaryaalka ha burinina bacda tawkiidiha markii la adkeeyay kabacdi waqad jacaltum ullaha adinkoo weliba ilaahay ka dhigtay calaykum korkiina kafiilan mid markhaati ah oo ka markhaati ah bilwafaa'i oofintii xaysu xalaftum bihi markaa ku dhaarateen ina allaha ilaahay yaclamu wuu og yahay maa tafcaluuna wax aan samayno waxaad samaynaysaan dheh waxaad samaynaysaan ilahay wuu ogyaho waa hanjabaado waxa weeye hadda ogaada allah inuu idinla socdo qofkii oofi waaye ha is jiro marka waxa weeye waxaa la rabaa qofku inuu horta dhaarta yareeyo sideedaba dhaarta ma fiicno qofku inuu iska dhaarto
dhaartu hadday laakiin laqwi tahay dhaartii laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fi aymanikum oo waxaas maya wallahi haa wallahi taas waxa weeye dhaar maaha laakiin dhaarta la iska rabaahi oo lagu dambaabaya waa midda qofku ku talagalka uu sameeyo hadduu sameeyo marka qofku ballanka inuu oofiyo way dhaartaas waa ballan ilaahay ee marqaati iga ahaad ka dhigatay aad tiri marka inaad oofisid weeye maxaa yeele ilaahay waa ku ogyahay oo kula socda walaa takunuu ha noqonina intaana casharkeena ku joojinayna wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh